magacayga ah Xaliimo Sayid Cabdi waxaa qalin la igu suubiyay isbitaalka Kalkaal alxamdulillaah ilaahay waa igu guuleysiyay marka iimaanay xaaladeeda aad u adkeed laakiin alxamdulillaah ilaahay fadligiisa iyo fadliga dhaqaatiirta ilaahay waa igu guuleysiyay haddana aad u fiicanay xaaladeeda way degan tahay ma sha Allah tabaarakallah ilaahay khayr ha siiyo intii ka dadaashay anigana caafimaadkayga Allah ii sii ziyaadiyo waxaan u soo jeedinayaa dagaalkooda inay meeshaas ka sii wataan ayagana ilaahay khayr ha siiyo waxaan meel dheer u aadi jirnay oo safar u gali jirnay maanta waxaan ka helnay wadankeena hooyo bulshada Soomaaliyeed waxaan fariin u dirayaa dadka meelaha dheer u bixi jiray oo qalimaha u aadi jiray inay iska daayaan ku qanacsanaadaan wadankooda dadka loo keeniyo oo maxay ahayd khibrad weyn u leh shaqada markaas ay qabanayaan inay Kalkaal la soo doontaan xanuunkoodan ay isku sii deeynin inta wax qabad oo leeyahayna isbitaalka ay la soo xiriiraan. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور رامي حسن أخصائي جراحة عامة وتنظيري في مستشفى كالكال. طبعا هذه المريضة كان عندها عدة حصيات في المرارة وتقرر إجراء عمل جراحي لها بالجراحة التنظيرية الليزر. الحمد لله نحن قادرين نجري كل عمليات الجراحة التنظيرية في البطن بالليزر باللابروسكوبي. عملية بسيطة طبعا وضروري جدا جدا للمريضة وبدون هيك ممكن تصير اختلاطات خطيرة على المريضة مثل التهاب بنكرياس أو انسداد الطرق الصفراوية. الحمد لله المريضة اجرينا لها العملية وكانت وضعها ممتاز جدا وتخرجت إلى المنزل ووضعها جيد جدا الحمد لله رب العالمين. طبعا نحن في قسم الجراحة العامة والجراحة التنظيرية في مستشفى كالكال قادرين على إجراء جميع العمليات في الجراحة العامة مثل عمليات البطن كافة، عمليات الشرج مثل عمليات البواسير والفيستولا والأنال فيشر، الشق الشرجي والأبسس، كذلك عمليات البطن مثل اللابروسكوبي للمرارة والفتوق كل أنواع الفتوق هيرنيا مع الميش كلها قادرين على إجراء بالإضافة إلى عمليات الثدي البريست والدرق الثايرويد كمان. قمنا بإجراء كثير من العمليات والحمد لله المرضى كلهم جيدين الحمد لله رب العالمين. شكرا.